السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دawada kusoo dhawaad channelka Siyaalka Media. Qodobadana ugu waaweyn maanta waxay kala yihiin madaxda xisbiyada oo 9 qodob oo xasaasi ah ka soo saaray doorashada 2020. Wasiir Khadiija Diiriye oo si weyn uga hortimaaday qorshaha ay damacsan tahay dowladda federaalka. wasiirka warfaafinta oo cambaaray gabar yar oo si arxan daraha loo kuursaday Afgooye. Dhankaasi wararka caalamkana waxaa ka mid ah Mareykanka oo laga soo tabinayo dhimashadii ugu badneed ee maalin kaliya dhimata. Magacaygu waa Maslax Nasiib. Fadlan haddaan ugu cusubtahay channelkan subscribe inoo saar si aad noo socoto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay. Aad mahadsan. haatan ku soo dhawaada warka faahfaahsan. madaxda xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen uga digay in doorashada Soomaaliya ay ka dib dhacaan waqti loogu talagalay oo aan la aqbali karin dib loo dhigo. qoraal ay soo saartay madaxda ayay ku sheegtay inay garoosatay in xukuumadda hadda jirta ay ka cagajidayso daawagelinta hannaanka xisbiyada ayna faragelin ku hayso guddiga labada gole ee diyaarinta xeerka doorashooyinka qaranka. doorashooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya waa inay ku dhacaan xilligii loo asteeyay, waana inaysan dhicin muddo kordhin. doorashooyinka waa inay noqdaan kuwo xor iyo xalaal ah kuna dhacaan si daahfuran ayaa lagu yiri qoraalka. madaxda xisbiyada qaran ee sidoo kale ka dalbaday saamilada siyaasadda ay kamid yihiin dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, xisbiyada siyaasadeed iyo ururada bulshada ay si wada jir ah uga shaqeeyaan in la abuuro xaalad deegaaneed oo laga hirgelin karo doorasho sax ah. wasiirka dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa si weyn uga hortimid qorshaha ay dowladda Soomaaliya ka damacsan tahay inay ka fuliso garoonka kubadda cagta ee Muqdisho Stadium. guddiga heerka sare ka hortagga cudurka sidoo ugu faafay adduunyada COVID-19 ayaa sheegay in garoonka Muqdisho lagu karantiili doono ciidamo lagu soo tababaray dowladda Soomaaliya oo loo keeni rabo Sacuudi iyo Djibouti. wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha ayaa sheegay in labadaasi ay tahay mid aad u qaldan oo aysan marnaba aqbali doonin, iyadoo guddigu ugu baaqday inay dib isku laabtaan. wasiir Khadiija ayaa sheegtay in garoonka ciyaaraha ee Muqdisho Stadium aan loo cayimin xarunta karantiilka dowladda, iyadoo arrintaasi ku tilmaantay inay tahay xadgudub lagu sameeyay shaqada ay dowladdu hayso. weli madaxda ugu sarreeya dalka kama aysan hadlin khilaafka ka dhex qarxay wasiir Khadiija iyo guddiga heerka sare ee ka hortagga COVID-19, waxaana wasiir Khadiija loo arkaa inay tahay mid ka mid ah wasiirada ugu awoodda badan xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. wasiir Maareeye ayaa sheegay in ficilkaas kuwii geystay yihiin kuwo aan damiir dadnimo iyo mid islaamnimo aan lahayn. waxaan si kulul u cambaaraynaynaa ficilka waxshinimada leh oo ka dhacay degmada Afgooye oo lagula kacay 2 gabdhood oo aad u daayar, waana tacaddi iyo weerar loo geystay magaca Soomaaliyeed, ayuu yiri wasiir Maareeye. wasiirka warfaafinta ayaa carabka ku adkeeyay in dowladda ay ku raad joogto dadkii ka dambeeyay ficilkaas foosho xun oo lagu kufsaday 2 gabdhood oo walaalaha. toddobaadkii hore ayaa degmada Afgooye lagu kufsaday 2 gabdhood oo aad dayar, kuwaasoo da'doodu lagu kala sheegay 3 sano jir ilaa iyo 4 sano jir. dowladda dalka Mareykanka ayaa 24 saac ugu dambeysay diiwaan gelisay 1480 oo ah kiisaska dhimashada dheeraadka oo la xiriirta cudurka coronavirus, waana tiradii ugu badneed ee maalin dhimatay caalamka marka laga soo tago Spain. tirada dadka halkaas ugu dhintay xanuunka ayaa hadda kor u dhaafaya 7,000. dadka uu cudurkan dalka Mareykanka ku soo dhintay ayaa gaaraya 275,000. guud ahaan dunida waxaa cudurkan COVID-19 ugu dhintay 57,000 oo qof, halka kiisaska laga xaqiijiyay kor u dhaafeen 1,100,000. daawadayaal intaas aan kusoo gabagabeynaa wararkeena. warkan warka xigeentaa kulmi doona waxaan kaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah.